maanta anigu waxaan u arkaa dadkan la wadin dhexdhexaadinaya dadkii eelkaba dhiga baan anigu u arkaa Soomaaliduna maxay tiraahdaa eelka kii dhigay u ashkatootoy maanta Soomaaliland waxay isha kaliya ee u baxaysa ama u iftiimaysa geeska ayaa hayd xaaladda laascaanood waxay sababtay khasaare aad u badan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira oo barakac keentay in dadkii deegaanka iyo Soomaaliland la dhexdhexaadiyo oo dalka dibadiisa laga dhexdhexaadiyo iyo gudihiisa adoo maxaad ku diidantay ku jaban baadida nin baa kula dadiyay daalna ka badine waan doonahay in hesho daayid abadka haddadkuna moodi dul wada dhashan wax u dahsoonayn horta sunna hore oo nooma hayn Soomaaliland sunna hore loo arkay ma hayn waxa la arintaasi ay dhicin siyaasi Cabdiqaadir waxa hadda ku baaqasay wada hadal xaaladda gobolka Sool lagu xaliyo waxaan ognahay in garaadadii gobolka Sool ay hadda Garowe ay u kicitimaan xukuumadda iyo garaadadii hogaaminaya dadka deegaankuna aad bay u kala fogiyeen sidee la iskugu dhaweynayaa sidee macquul u tahay taladaad waa siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiyo loo garonog yahay madaxweynaha mustaqbalka kana mada siyaasiyiinta madaxa bannaan ee Soomaaliland oo maanta waraysi aan kula yeeshay magaalada Hargeysa cod dheer kaga soo horjeestay in wadamo iyo dad shisheeye isku dayaan dhexdhexaadin ku aadan xaaladda laascaanood iyagoo u kala dab qaadaya xukuumadda Soomaaliland iyo dadka deegaanka siyaasi Cabdiqaadir ayaa ku tilmaamay in talabadaasi dhaawac ku tahay Soomaaliland oo sheegay inay 31 sano khilaafaadkeeda ku dhameynaysa wada hadal iyo isku tanaasul insha Allah ta'ala xaaladan gobolka Sool runtii waa xaalad runtii aad aniga qalbigayga u ruuxday in badan hore aan uga hadalay waayo waxa ka socdaa waxa weeyaan runtii waa dhaawac weyn oo ku yahay nabadgelyadii iyo noloshii iyo himiladii iyo hamigii Soomaaliland ay inta badan hiigsanaysay ee ku soo caanamashay ayuu runtii dhaawac weyn ku yahay runtii imanka waxa la leeyahay intii hore aan uga hadalay horta waa ka hadalay maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrintan la leeyahay dhexdhexaadin ayaa jirta oo ay doonayaan gobolada jaarkii inay dhexdhexaadiyaan taasoon anigu u arko runtii inay nagu tahay ceeb inagu tahay waayo sunnaha Soomaaliland waxay ahayd in ayadu wixii khilaaf ah ee dhexdeeda yimaada inay dhamaysato sunnaha Soomaaliland ayuu ahaa waana ku soo caanamashay halkaana way ku soo gaadhay iyo nabadda lagu majeeranayo iyo horumarkaas la taaban karo ee 30 sanadood laga soo shaqeynayay waxa ku soo gaadhay isu tanaasul iyo wixii khilaaf ee dhexdooda yimaada in ayagu dhameystaan maanta anigu waxaan u arkaa dadkan la wadin dhexdhexaadinaya dadkii eelkaba dhiga baan anigu u arkaa Soomaaliduna maxay tiraahdaa eelka kii dhigay u ashkatootoy wuxuu ninkii gabiyay misalan Carabi buu ahaa ma xasuusto baadida nin baa kula dadiyay daalna ka badine waan doonahay in hesho daayid abadka haddadkuna moodi dul wada dhashan wax u dahsoonayn yacnihi dadka caynkaasa oo maanta anigu aan u arko inay yihiin dad ku soo duulay qarannimadii Soomaaliland ayaa doonaya haddana maanta inay shaar kale inoo soo xidhaan iyo dhexdhexaadinna inooma samayn karaan waxaan ugu baaqayaa waa dowladaha jaarka aynu nahay weeyaan waxaan ugu baaqayaa anigu aan ugu baaqayaa dadweynaha reer Soomaaliland ama reer Sool ha ahaadaan ama reer shacabka intiisa kale ha ahaadaan cid sukeen dhaanta inaanay jirin waxaynaan inagu isla qaadan oo gorfayno geedka hoostiisa aynaan ku dhamayna cid aanay inoo dhamayn karin inagu waxaan leenahay miiska wada hadalka ku soo noqono aynu isu tanaasulo aynu wixii dhacay way dhaceen wixii dhintay way dhinteen inta nool aan ka talina baan leeyahay maanta Soomaaliland waxay isha kaliya ee u baxaysa ama u iftiimaysa geeska ayaa hayd taas baa la doonayay maanta in lagu soo duulo waana lagu soo duulo runtii xaaladda laascaanood waxay sababtay khasaare aad u badan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira oo barakac keentay in dadkii deegaanka iyo Soomaaliland la dhexdhexaadiyo oo dalka dibadiisa laga dhexdhexaadiyo iyo gudihiisa adoo maxaad ku diidantay ku jaban anigu waxaan ku diidanahay horta sunna hore oo nooma hayn Soomaaliland sunna hore loo arkay ma hayn waxa la arintaasi ay dhicin horena oo may dhicin inaga ba dhamaysan karnaa wax allaalo inagu wax inaga dad wada dhashay baa nahay dad isku diira isku diina isku dala isku afwa wax allaalo waxayna dhex yaala waa tabashadana insha Allah ta'ala waa dhamaystiri karaynaa dad la dhexdhexaadiyana ma nihin aqligeennana in la caayaba anigu u arkaa hadii la yiraahdo ummad shisheeye oo kuwii waxaan doonayay inaan meesha aanay ka kabaninba Soomaaliland halkan ay marayso hadii yiraahdo aan dhexdhexaadino anigu waxaan u arkaa runtii hadii Muuse la diidan yahay madaxweyne Muuse
madaxweyne muuse waa shakhsi bini aadamkuna waa khaldami karaa كل ابن هذا خداء ويحب الله خداءنا توابين وابا إنسان بابين هاي الإنسان واقي خلدمه بإلهي نبحي وابا خلدمه إلهي نبحي أنا وحن لاقي هاي هلا كلا سارو الشخص معارضة ديسه يقدنت قرنك يقرنك هلا كلا سارو بان لاقي قرنك ما أنت موسى شلبو يمي بيرنا وتجيا أنت أسمى مدحوينه كهوري يمي وايس كتجيا يسقونه وتجيا لكن سومالي لان تجي ميسو وحين يسون هاي دهول بهانته يدك كرير صلبة ما تجيا laakiin cabdiqaadir markaad tiri in Soomaaliland waxay aad ugu caanamaashay inay arrimaha dhexdeeda ay ku dhamayso wada hadal iyo waan inta badan dadku waxay xasuustaan in arrimaha doorashooyinka ee xisbiyada mucaaradka ee xukuumadda u dhaxeeya ay Soomaaliland ku soo noqonayaan taana xalkeedu ay noqoto wada hadal laakiin tan hadda ka taagan gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood waa arrin ka duwan oo dad badan ay qabaan ugub ku tahay Soomaaliland taalaftarkeedu haddii loo baahdo in dibadda laga xaliyo miyaanay ahayn mid habboon oo la soo dhaweyn karo wallahi anigu ayadoo horta dee maxal kale la waa mise inta la helaya xal kale haddii la waayo waa meesheeda wadanay ku tiri waana ceeb aanay nagu tahay runtii dad ayagu ilaahay garaad siiyay baynu nahay dad caqli leh baynu nahay dad diin leh baynu nahay ummad baynu nahay intaa soo sanadood soo jirtay weligood bay Soomaaliya soo leen jirtay cidimay soo dhexgeli jirin colaad wax ka soo reebay Soomaaliya waa halkaas iyo qabiil weligood bay soo dili jireen cid dhexgeli jirto shisheeyaha ma jirto shisheeya danun buu ka leeyahay waxaan leeyahay anigu waxaynu garan weynay inuu ku heshin weynay shisheeye waa magacayna siin inagu magaca qaadano inaga waxay naga dhaxeeyaan inaga wax wada leh inuu maaragtay inaga maaragtay waxaan hees baa wax oran jirtay aan isu heshano aan wada jirano walaalayaal Soomaa yani tabantaabada laba gacmo tabar ku yeeshaan kol hadaan bidixda midig taawin taar mo goyseen war inagu waa wax wada qabsano aan isu tanaasulno aan miiska isugu nimaadno waynu dhammayn karaynaa baan qabaa anigu inagoon cid u yeelanin siyaasi cabdiqaadir waxaa hadda ku baaqaseen wada hadal xaaladda gobolka Sool lagu xaliyo waxaan ognahay in garaadadii gobolka Sool ay hadda Garowe ay u kicitimaan xukuumadii iyo garaadadii hogaaminaya dadka deegaankuna aad bay u kala fogiyeen sidee la iskugu dhaweynayaa sidee macquul u tahay taladaada wallahi horta waxa la yiri Soomaalidu waxay ku maahda baqi iyo baxnaana way ku hodaa haddaad qof isqabataan oo baqato ku diliyo loo kala bax haddaa holu ku soo diriftaad qamo weydaan adigu bay ku taala wadunya waa kama soo rees baaleen ama waa sagaal oo ma tabnowdo anu waxaan ugu soo baaqi lahaa garaadada siiba garaad jaamac garaad Ismaaciil waxaan ugu baaqi lahaa Soomaali maxay tiraahdaa geel jir geel waan wada jirtaa waana kala jirtaa isaga uga shadhigay isaga midda daabkeeda u hayay garaadada isaga gurigiisii tahay ayadoo la wada leeyahay Soomaaliland dhan gurigu ka dhaxeeyo haddana odaygiisii waxa isaga waxa laga rabaa go'aan adag inuu qaato oo ku soo celiyo xalku ka tagay wada hadal oo ku soo celiyo miiska wada hadalka fariintaas aan u diray aanu garaadkaas garaadada kalena waxaan leeyahay aqligu idinka haydin shaqeeyo cudustu keenaata meel kasta hadda qabataan kala tagimeen Allah inayna kala tagay marka waxaan leeyahay iyagana aqligu haydin shaqeeyo hal la yimaado wixii dhacayba waa laga heshiinaya insha Allah ta'ala xukuumaduna waxay ballan qaaday wixii dhacay inay qaadanayso ma garatay horuu ballan qaaday madaxweynuhu haddana waxaan leenahay haddii anigu aan ahay anigu siyaasiyiinta Soomaaliland aan kamid ahay dadka ugu taageerada badan la Soomaaliland madaxweynaha inaan oran karno waa kursigaaga bixi haday doonayaan reer Sool ay maanta ku qancayaan waxaan leenahay welcome oo ku sooriyeen kale wax kasta waa laga heshin karaa kursiga madaxweynaha haday doonayaan anaga oranayna warka digo baludhi ma garatay waxaan leenahay jidka wada hadalka loo maraya jidka wada hadalka iyo isu tanaasulka iyo walaaltinimada wax la sii hayba loo maraya waxay noogu dhamaanayaan baa loo maraya wax kasta waxay noogu dhamaanayaan anagu waxaan leenahay diyaar baan leenahay waana soo dhaweynaa xalkuna wada hadalka ka tibkosan mayse ceebta inaga daayay iyo wala dhex galay Soomaali baa la dhex galay dad shisheeyo oo dana gaar ay naga leeyahay inayna dhex galaan ceeb bay nagu tahay